idoor baan ku horeynayaa kala hadalka iyo tirsaasiga qofkii yaqaana waxaa la dhaha qofku markuu xanuunku intuu ka bata isgaran waayo hadalla aan la garanaynin iyo wax la garanhaya uu isdhex dhigo horey waxaan idiin idhi ninka gobta ah rag marka hore ee ayna rag isqabanin futadiisa irbadu ma marto rag maalinka ay isqabtaanna futadiisa waxaa la yidhi 100 riti oo geedi ah baa marta human being ama bini aadam marka aad tahay waxaa fiican xaqiiqda waxa la yidhahdaa naftaada inaad ku dhaqdo af waddan laguma xorayn karo af horumar laguma gaadhi karo af waddan laguma qabsan karo af dawlad laguma noqon karo laakiin waxay u baahan tahay ficil adiga oo hadda hooyo calaamad su'aal ba halkaas saarane aan ka boodaynin awooddaadu waxa ay tahay hadday tahay mid shacab iyo dhaqaalaba dhulkaagu waxa uu yahay in badan waxaynu maqalnay somalilan way duushay cirka yaaday soomaalidu waxay dhahdaa been fakatarun uma gaadho anigu mar walba waxaa niyadda ku haya onoga idoor waxa uu yahay iyo dhulka uu ku faanahayo iyo waxa uu yahay iyo waxa uu iska gadahaya iyo sheekadantada in af meesha lagu hayo 3 qolo oo soomaali ah baa afka waxa la yidhaahdo ku caana maasho oo rabta inay waddan ku qabsato ama ay population ku noqoto waxaad maqli nimanka la yidhaahdo majarteen inta madax madow iyo majarteen baa siman waxaad maqli nimanka la yidhaahdo hawiye miyaad maqashay abgaalinta ay laagtahay soomaali oo dhan hawiyaa ka badan hadda hawiyaha lagu sheegi waaba 2 shabeelle iyo hiiraan iyo galguduud qayb ka mid ah soomaalidu nafteeda beenta ay u sheegto waxaa ka mid ah 18 gobol ee Soomaaliya 9 ka mid ah iyo 2 degmo waxaa dega daarood 2 gobol oo idoor dego 4 hawiya dego 2 raxan weyn oo weliba qayba lala dego labada adigu maadaama degmooyin ay jubbooyinka degan yihiin lababa ka dhig 4 iyo 2 waa 8 4 iyo 2 waa 6 2 ku dar 8 8daa weeye waxay ku soo urureen leela waxaad ku dartaa gobolkii kale ee gudabiirsayga waa 9ka waxa dhan la sheegayo aata iyo yeed baa weliba la socda oo daarood u leeyahay soomaalidu waxay naga dhaadhicinaysaa hawiya naga dhaadhicinayaa 4 gobol ee hawiya degan yahay waxay ka badan yihiin daarood oo dhan anuguna waxaan taagnahay qabiilka majarteen la yidhaahdaaba hawiye ka badan daarood kaleba intaan la gaadhin sidoo kale urur Soomaale iyo sheekadan lala ordahayo ee suuqa ordaysa waxaan ogahay dalna inayna haynin dadna inayna haynin laakiin ay rabaan dhul inay ku qabsadaan nafta adiga taa been haddaad u sheegto haddii hawadaadu been kuu sheegto dantaada run kuu sheegtay Soomaalidu dhahdaa dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya markii uu dhacay qofku marka uu xiqdi qabo ee cuqdad qabo ee cuqdad qabiil uu qabo iyo qof daacada isku wada ma maraan hogaamiye kooxeedyaha la sameeyay dawladdu si inasiyad baraa lala dagaalamahayay ninkii ugu horreeyay la dagaalamay Daarood Cabdullaahi Yuusuf ahaa ninkii labaad ee ugu ciidan badnaana wuxuu ahaa in Cumar Jees 550 gaari oo tiknikaan ninkii ceer barday kala soo galay buu ahaa maalinkii xamar la qabtay la yidhahdana arrintii waxaa loo rogay ilaa cuqdad bay qabeen hawiye arhay daarood ka cayri arhay daad ka cayri arhay hawiye beenta uu naftiisa u sheegay waxaa ka mid ah Soomaali markii ay dagaalantay ee dagaalka sokeeye u dhacay nin walba gobolkiisii buu aaday hawiye waxa wax weyn la ah oo ay ku faanaan oo ay dhahaan laandheeraan nahay oo ay dhahaan daarood baan ka adkaanay hadda waa xamar iyo dhulkiisii oo looga tegay oo dawladda iyo systemkii ka haddii uu burburay aduguna qabiil aad u bugtay nin walba goboladu ka soo jeeday buu aaday ma jiraa gabal daarood oo hawiye uu qabsaday oo haysta maanta maya waxyaalaha beenta ee carruurtooda ay ugu sheekeeyaan waa waxyaalaha xiqdiga ah ee ku jira qabiilka daarood la yidhaahdo
maalinkii maxamed siyaad barre dowladdiisa allah yarxamak uu baa la riday urur soomaali waxa la yidhahdaa maalinkaasa la sameeyey in cigaal baana sameeyey haddaad ogtiin iyo haddii aydaan ogeynba inta ogay inaad ogaato waa muhiim lixdan ka ubaatiin in nin walba sheerta taabtana waa jeclaan lahaa laandheerashan waddan dega ogaadeen ssc puntland jubbaland dee labada shabeelle anigu dhulka aanu aqaano haddii ay yihiin shabeellada dhexe waa runta iyo shabeellada hoose mid baa lala degaa oo weliba ay degan yihiin nimanka la yidhaahdo biyomaliya ay degan yihiin waaba saddexa gobolba waxa uu ku soo ururaya xaban hawiye aan ku mashquuli mahaya taas waxaa la sameeyey urur soomaaliya waxa la yidhaahdo qorshaha la degayna wuxuu ahaa daaroodka qabiilka la yidhahdo xukunka soomaaliya in laga ilaaliyo waa fikirka iyagu ay fikirka umar soomaali ay istuseen in cigaal iyo isla gaadheen caydiidiya buu ahaa taasuna way beenowday oo gaalkacyo maalinkii la weeraray ee ninkii ragga ahaa cabdullaahi yuusuf uu nebiga u qoray iyo kayskaasu burburay maantana kayskii baa socda laakiin ogow ngo nin wax ku soo bartay waxaa arkay kuwo meelaha la taagan doctor xasan sheekh xaguu waxaa doctor ku noqday xasan sheekh xaguu baa mastered iyo phd ga aad sheegtaan ku diyaariyey bal ii sheega meeshuu ku diyaariyey ii sheega dad inaan aqoon u lahayn baad rabtaan af cid walba oo meeshaad tagta haddaad ka dhigaysaan aqoon-yahan idinka idin taallaa xasan sheekh arrintiisa waan geli doonaa iyo dowladda soomaaliya fikirkaasaa la sameeyey laakiin ogaada ninkii neeftu ka timid waxaa dhuusa moodaya waxaar igu noqday dad minority oo dhulka soomaaliya inta uu ka dega ay qiyaasan tahay oo bariya galbeed joogto oo carruurta barigaa nahay baa waxaan maqli jiray hooyada lugna cirka degtay lugna dhulka dhigtay see fulali ma garanayo inta kale ya berigaan carruurta ahayn baan maqli jiray dadka noocaasa baa wuxuu isku dayaya inuu qabiil ku xisaabtamo oo qabiil wax la yidhahda isticmaalo xasan sheekh wuxuu isticmaalahayaa qalankii baan hayaa inaan dembi lagu soo oogin muuse bixiow waan geli doonaa arrintiisa halkaa ii jooji iidoon nimanka la yidhaahdo balayn a iyo balayn b gabadh baa laysi siinaya maalinkii lalahaa ee la jooga anu gabadhaa soomaaliyeed caayim hayo gabdhaha macaayo dhaqanna uma lihi ee la isugu tegaya meesha muuse bixiood coomaadi moodi iyo odaygii dhabarka qaba ee jabuuti jooga iyo xasan dhacay weyne ay meesha isugu tageen qorshaha la soo degay wuxuu aha balayn a iyo balayn b adigu waxaad raadinaysaa dowlad soomaaliyeed laakiin adiga iyagu waxay raadinayaan adiga sidii ay ku baabi'in lahaayeen bay raadinayaan waxaynan aan dhici karin oo cirkaas miyuu gaari karaa hadda intaan dulo cirka ma gaari karaa maya taasay iyagu been naftooda ugu sheegeen laakiin waa caqli xumada dadka soomaaliyeed waana qodobaynaya anugu hadalkayga sumad baan u dhiganaya caqli xumadoodan kuu sheegayaae 18 gobol ninka intaa ka dega xaggan kada ogaada inuu ka yahay oo populationka soomaali oo dhan leeg xaggan kada ay ka tahay nfd uu ka yahay ninka hargeysa ku oodan een waxba ka bixina shimbiru ku noolaan la yihiin iyo ninka muqdisho ku oodan oo aad aragtay dhulka gobolka hiiraan marka la yidhahdo wax soo saarka uu gobolka hiiraan leeyahay si gobolka hiiraan weeye wax soo saarka hawiye uu leeyahay dhulkiisaba dhusamare waad aragteen shabeellada jawharna waad aragteen dhulka u dhexeeya wax soo saar ma ku aragteen dhulka maya waxa uu ku faanaya hawiye dhul baan leeyahay uu leeyahay waa waxa waa nimanka ay geeska geliyeen xawaadle dhulka ay degan yihiin dhulka keliya hawiye uu ku faanaya qorshahaasaa la degay qorshaha balayn eegu wuxuu ahaa ogaadeen gobolka la yidhahdo sool iyo sanaag in lagu daro somaliland jubbalandna hawiye lasoo raaciyo laakiin haddee naftooda been bay u sheegeen reer gaaris baan ka maqli jiray dabadaan ka idhino dabadaan ka dhahay dabadaad ka tidhaahdeno xiqdiga taariikhda ninka haya ama caqliga oo saaxiibka qofka xiqdigu uu ku jiraa calooshiisa timaha ay leedahay cuqdadowga labada nin ee walaalaha ninka calooshiisu furan tahay ee bashaashka wuu tarmaa ka xiqdigu ku jirana ma tarmo qofka tiibayda cudurka la yidhahdo iyo neeftu ku dhacdo waa qofka cuqdada qaba haddaad taqaanaan iyo haddii kale historiga dib u raaca arrintaas qofku marka uu daacad yahay laba nin oo walaala ah ninka wiilasha badan waa ninka daacadda ah een cuqdada qabin xiqdiga qabin taana aan ka gudbo idoor maalmihii hore been baa loo sheegay been bay isu sheegeen carruurta iyo maatida iyo naagaha been bay u sheegaan 3 nin oo beenaalayaal ah oo ilaahay ka furtay oo qarnigii nuur cuburiye ka hadhay
oo wada madax idiin ah oo coomaadi ah oon ilaahay ka cabsanaynin baa been u sheega yaa been u sheega populationka Soomaaliya dadka Soomaalida population ahaan waxaa lagu qiyaasaa 40 milyan 40 milyan 26 milyan waa daarood ninkii uu haystana igala doodi karana uu soo qabsan karaa waqtiga aanu baahdo haddii alla idmo caqliga iyo door baan wax idiin sheegayaa caqliga iyo door baan rabaa maanta inaan wax ka tuso anigu xitaa qof waalan oo calalada dhigtay xitaa sida ay u hadlayaan dadkan ma arag wax hadla saacadda hadda la taagan yahay haddii uu ii door leeyahay ciidamada fasaxa adigu sidhe habar jecla waxaa lagu yidhi waxaa laydin qabanayaa dhul baahante laascaana waxay noqonaysaa xaruntiinna idinkaa yeelan haya hadda waa nimankii buurta saaray ee yidhi fardaha qoobabkooda yudhaguhu wax naga yeelahaya buurta kama soo degi kartaan oo buurtaanu ku noolaanaynaa ay dheheen hadda ogaada waa nimankii raggoodii la guursaday ee loo fadhiistay ee ninka ogaadeen garta qaad inta la yidhi uu gartan way adag tahay ee garadag uu kula baxay af xakame hadda ogaada dhulbaante iyo door oo dhan qabiil uuna bartiisa intuu ugu tagay nabiga u qorin oo aan ku saliyin ma jiro nimankii noocaaba waxay dhaheen dhulkoodan qaadanaynaa mar haddii inaad taahin tahay tuunta laabtaadu tuudowga xoolaha rag baa tala ku sii dheere walla tala adduun ila ragow taadawn ma aha naftoodii bay been u sheegeen maalinka hore waa lahanjabahayay waa burburinaynaa jamhuuriyadda barakaysan laascaana waa somalilan annagaa iska leh dhulka ha lala simo ballaqa 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 albaabada ballaqa 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 ninbaa waxaa laga sheegay reerkanaga gun waan colownay gobna waan colownay gaalana waan colownay gob waan colownay ninka gobtaa isagoon hadal buu wuxuu dilahaya dilaa gun waan colownay 24 saac afkay kala haysaa sida ii doorka gaalana waan colownayo intuu kuu loogo iyo weliba xabad karkaasiin ama indhaha meeshu kugu saaray waa kugu dilahayaa waa gaaladii saddexda qodob baa ragga loo kala qaybiyaa idoor waa gun saacadda hadda la taagan yahay hadduu idoor ku doodahayo oo miidiya isugu sheegahayo oo carruurtiisa iyo siyaasiyiintiisa uu been ugu sheegahayo ballaqa albaabada ballaqa oo laascaanaha la duqeeyo oo waa la soo qaqabanhayaa maalin dhowd waxaan dhegaystay mid idoora oo af biijaa leh ood mooda dukadda cardaaqay oo markuu yeedhayaa 60 jir ahoo leh 80 saacadood ee soo socda waxaa ku tusi doonaa garaajaaba oo ninkii idoor wax ka sheega reesha sahaaq ninkii wax ka sheega xabad ku dhufanhaya sheekadana waa lagu kala tegahayaa dabadaad ka dhahday noo dabadaan ka iri noo ya waxaan arkay nin oday ahaa oo lahaa laascaano waa in la burburiyo gabdhahooda waa in la kufsado laascaano daarood waa in la gumeeyo bal caqliga iyo door baan wax idiin sheegay waa caqliga odhanaya 24 gobol waa 31 gobol ee Soomaali yaan gumaysanayaa anigoo 24 gobol baan gumaysanayaa oo dhulkooda qaadanaya oo gabdhahooda kufsanaya caqliga iyo doordhe waa caqliga odhanaya dhulbaanta saaka unbuu ugu daraayo mid labaan arkay dhulbaanta waa reesha saxaaq oo geed baa laga soo helay hadda shalayna waxay naga dhaadhiciyeen arab baa dhalay abtiyaal baanu nahay waa wiilashannadii caqliga iyo door waa ka odhanaya dawlad iyo ictiraaf baan raadinhayaa inta iyo doorka un baana wax cunaysa inta kalena weliba iyo anigoo keliga wax cunaayeen haddana laynagu dahrahayaa caqliga iyo door waa ka odhanaya daarood oo 3 wadaniga degaanana oo 2 gobol gumaysanhayaa caqliga urur Soomaali waa ka odhanaya 4 gobol oo Muqdisho ah iyo 2 gobol oo waqooyi galbeed ah dad gumaysanaysa caqliga iyo door waa ka odhanaya harti annaga ka xigna ee dhulbaanta yeena u soo hiirinin aniga oo ii door oo daarood ka weyna waan soo hiirinayaa dhulbaanta oo 4 jilib ee habar jecel jilib kamida iyo harti baa isleeg caqliga iyo door waa ka sidaa odhanaya bal ila fiiriyo dadkanu inay miir qabaan iyo in kale caqliga iyo door waa ka odhanaya maxaa loogu hiilinayaa meelaha laga imanaya caqliga iyo door waa ka imanaya dhulbaanta oo iyagu dagaalka ay ku kallifeen oo gob ahaa allahayow nin gobabaane hoo guru rifaysaya allahayow garaadkaygu waa labada geesooda gunbaa heshay oo dagaalka ay ku kallifeen waa nimanka odhanaya maxay noola dagaalamayaan
caqliga ii door waa ka odhanaya daarood muxuu ugu helinayaa dhulbahante caqliga ii door waa ka odhanaya ra-iisul wasaaraha waxa weeye wuxuu ka yimid etoobiya ku laabto soomaaliya ka tago oo soomaaliya sooteed waan ka tagay lahay caqliga ii door waa ka odhanaya axmed madoobe wuxuu ku dhashay ogaadayo waa nin reer cabdillah ka tago caqliga ii door waa ka odhanaya xamse waa nin reer cabdillehe soomaaliya waxba kuma leeyaha ka tago oo adeero sooma ogidba soomaaliya annagu inaan leenahay daarood haddaan unahay annagu inaan leenahay oo intiina kale minority ba aad tihiin oo idinku waxa aad burburisaan iyo tuugo iyo inaad wax haddaan mooyaane waxba ma dhistaane dowladda soomaaliyeed ba dadkii dhisay ee soomaaliya magacaba keenay inaanu nahay soo ma ogid annagu dadkii xornimadaba keenay ee ka saaray ingiriis waddanka adigu markii aad u adeegaysayd ingiriis dhaladkiiow xaggeen kaa dhunkadaada aad lahayd ee candhada dheer uu kula dhacayay idoorow soo ma ogid raggii xoreeye inay daarood yihiin